بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم داوديال waxaad ku soo dhawaataan sheekadeeni la magac baxday noloshii madoobeyd boqoradaas waxay hadalkeedii ku bilowday sidan ha ka dalban sanadka cusub inuu wanaagsanaado maxaa yeelay dhibaatadu ma aha mid xalkeedu ku jiro bilowga sanadka se waxa aad ka helaysaa adiga bilowgaaga macnaha madaxaaga maskaxda ku sii guda jirta ha ka dalban sanadka cusub inuu wanaagsanaado balse adigu wanaagsanow oo bedel astaamihii xumaa ee aad lahayd ha ka dalban sanadka cusub inuu isbedel keeno maxaa yeelay ilaahay ma bedelo qowm ilaa ay iyagu bedelaan nafahooda ku jira in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim isbedelku waa uun goortii aad go'aansato inaad samayso isbedelku maaha wax adiga oo xumaantii ku jira aad samayn karto isbedelku maaha waxa aad YouTube iyo Facebook ka helayso isbedelku waa waxaad maskaxdaada ka helayso oo ah go'aan qaadasho isdhiiri oo qaado go'aanaad ku bedelayso caadadaada xun ee aadba og tahay isbedelku waa goortii aad go'aansato adigu inaad samayso isbedelku maaha wax adigoo xumaanta ku jira aad samayn karto isbedelku maaha waxaad YouTube iyo Facebook ka helayso isbedelku waa waxaad maskaxdaada ka helayso oo ah go'aan qaadasho isdhiiri oo qaado go'aanaad ku bedelayso caadada xun ee aadba og tahay xumaanteeda waad og tahay xumaanta aad rabto inaad bedesho waad og tahay dhibaatada aad ku qabto caadada xun se waxaa kaliya oo ka dhiman qaadato go'aankaad ku bedeli lahayd qaado go'aan waa hubaal waad isbedelaysaa waa qormo kooban laakiin macno ballaaran ayaa ku jira iyo galow inaan ku fasiro haye bal ila soco waxa ay inooga digtay in sanad bilowda iyo saacad bilaamata toona ku hayn isbedel maxaa yeelay adoo dhibban ayay saacadi bilaamataa haddii aad xalka heli weydo waa ay iska dhammaataa oo mid kale ayaa bilaamataa taasina sidaas oo kale ay isaga dhammaataa haddii aad xalka heli weydo aan su'aal ku weydiiye xalka maadaa isu haya mise waqtiga jawaabtaadu waa aniga ayaa isu haya haddaba ka faa'iidayso saacadda si aad xal u hesho inta ay socoto si ha sugin in ay ku bedesho waxay noo caddaysay dibteennu in aanay ku jirin sanad bilowda bil bilaamata ama saacad bilow ah si xalkeennu waxa uu ku jiraa ayay ina tiri madaxeenna macnaha haddii aan ku dhowaado maskaxdeenna halka aynu wax ku kala saarnaa waa maskaxda halkaas ayaynu ka raadin karnaa xalka dhibteenna mana filayo in aynu ka waayayno laakiin waa mid innaga inagu xidhan taasi wayse fududahay in aynu helnaa maaha in aynu dadka iyo waqtigaba ka barino inaynu wanaagsanaano laakiin waa in aynu inagu wanaagga iska dhex raadinaa taas ayaa keenaysa in aynu wanaagsanaano meel kale ha ka raadin isbedelka aad doonayso adigu iska raadi adigu iska dhex baad waa hubaal waad helaysa ha cabsan alle ayaa kula jira alle qoom ma bedelo ilaa ay nafahooda bedelaan bedel naftaada oo alle tala saaro waa hubaal waad isbedelaysaa qormada markii aan akhriyay runtii aad ayaan u farxay waxaanan ogaaday in aan helay halkii aan rabay si dhaqso ah ayaan u kacay qaadkii ayaan tufay dhankii xaafadda ayaan u soo rooray waan yimid isla markiiba qubaysi ayaan bilaabay markii aan qubayskii dhameeyay aniga oo weyso qaba ayaan ka soo baxay xamaam waa xilli dambe saacaddu waxay taagan tahay 2 habeenimo cidna ma soo jeedo salaadadii markii la maqlay waxaa loo arkay in aan murqaansanahay oo sidaa layguma sii mashquulin ma garanayo xilli aan alle food u dhigo markiiba waxaan dareemay deganaashiyo waxaad moodaa in naacaw qabow isoo gashay aniga ayaaba iskaran la waagii ayaa bariyay qoyskii oo dhamina waa soo kacay waa la quraacanaya oo qoyska oo dhami waa iska kaftamaya aniga waxa quraacda ii keena wiil yar oo aan adeer u ahay sidii caadada ahayd ayaa quraacdii laygu soo dhiibay waxa uu aad u nacay kicintayda waxa uu ka baqayaa in aan dilo mararka qaar ayaan iskaga qaraaroon jiray oo dili jiray waa uu ii soo galay isagoo oo filaya in aan hurdo yaab waxa uu la kulmay wax aanu filay waa xasan oo xidhan khamiis isla markaasna dul fadhiya sijaayada gacanta waxa uu ku hayaa kitaab quraan ah waxaad moodaa in uu xalay oo dhan quraan akhriyay markaan arkay in uu ila yaabay ayaan u yeeray oo ku idhi iska waran adeer waan fiicanahay ayuu igu yidhi orod oo dugsiga aad ayaan ku idhi isna haye ayuu igu yidhi markii uu iga baxay ayuu wixii uu arkay qoyska la wadaagay uuna sheegay sida aan ahaa iyo wixii aan qabanayay cidi kama rumaysan qaar kalena
waxay dhaheen imikuu kolba sidiisii dib ugu laabanayaaye daaya. qolkaygii ayaan ka soo baxay. qoyskii oo daaradda fadhiya ayaan u weyn. waxaan ula hadlay sidii dagaalka iyo dooda ahayd si ka duwan, oo waxaan idhi anigu ma ihi sidaydii, waan isbedelay ee ducada igu kaalmeeya. yar iyo weyn waa ii khushuuceen, ducana waa igu hurgufeen. hadda waxa aan ahay mid ka mid a dadka aadka loo qadariyo. asxaabtaydii xumaanta igu nacday ee igaga tagtayna maanta ra'yiga ayay i weydiinayaan. noloshaydii oo dhan baa isbedeshay. alle ayaan noqday mid ku xidhan. waxaan ahay mid mar kasta cibaadaysta. noloshu macaana markaad hayso dariiqa saxda ah. haa, balwadii oo dhan ayaan iska daayay. waxaan noqday nin xaas yeeshay oo ubadna alle ka baryaaya in uu siiyo. ma rabtaa inaad isbedesho? laba mid uun samee. kow, go'aan qaadasho la imow. adigu keligaa inta aad meel fadhiisato isweydii dhibtaada. markaad ogaato mushkiladaha halka ka feker. hana ka cabsan ee hore ka qaado, iskuna day inaad fuliso halka kuu soo baxay. laba, alle kaalmayso. mar kasta oo aad dhib dareento, alle tuug u sheeg mushkiladaada. isaga ayaa awooda inuu kaa saaro dhibtaada. alle ku xidhnow oo wanaaji xidhiidhka adiga iyo alle idinka dhexeeya. mar kasta oo xumaantaadu badato, waxaa badanaysa dhibaatadaada. waxaad moodaysaa in noloshii oo dhan lagugu soo cidhiidhiyey. mar kasta oo aad alle isku xidho, waxaa badanaysa wanaaggaaga, farxaddaada iyo degganaanshahaaga. ku xidhnow alle si aad u noqoto mid guulaysta if iyo aakhira.